waxaa jiray ciyaar halis ah oo lagu magacaabo laba saddex qof oo lagu ciyaarayo meel u eg fasalka. Meesha waxaa taagnaa boonbalo Mooryaan ah aan la garanayn meel uu ka yimid, laakiin ciyaarta wuxuu leeyahay xeer adag. Marka uu gadaal u jeesto, qofkii dhaqaaqo wuu qarxayaa wuxuuna isu bedelayaa kunto jocolati ah. Waxay ahayd ciyaar halis ah oo dhimasho keenta, laakiin nasiib wanaag ardayga la yiraahdo Takada ayaa ka mid ahaa kuwa ciyaarta galay. Markii ciyaartu socotay, arday indho gashi wata ayaa ogaaday sir. Gadaasha Mooryaanka wuxuu ku arkay badham cas oo ay ku qoran tahay riix si loo joojiyo ciyaarta. Xilli uu islahaa waa fursad, wiil kale ayaa orday si uu u riixo, balse Mooryaankii ayaa si lama filaan ah u jeestay, wuxuuna wiilkii ku dhamaaday isagoo la burburinayo. Gabaraha kalena way cabsadeen, iyaguna sidaas ayay ku noqdeen jocolate beans. Waqtiga ciyaarta waxaa ka hadsanaa 1 daqiiqo, waxaana haray kaliya Takada iyo indho gashigii si ay u badbaadaan. Indho gashigii wuxuu ku yidhi Takada, istaag aniga dushayda, ka bood si aad u gaarto badhanka. Daqiiqadii ugu dambeeyay Takada wuu guulaystay, wuxuu badhankii riixay, ciyaartiina way istaagtay. Laakiin indho gashigii isagana game over ayuu noqday. Mooryaankii wuxuu sheegay kaliya ka riixay badhanka in uu noolaado, Takada keligii ayuu baxsaday. Laakiin mar uu albaabka furay, wuxuu ku dhacay saaxiibtiisii hore Jika. Dugsigii oo dhan wuu xirmay, hal albaab kaliya ayaa furnaa. Waxayna galeen gudaha, waxayna heleen garoon kubadda kolayga ah oo ay jiraan arday badan, balse dhammaantood waxay xiran yihiin dharka jiir. Markii la isku dayay in la fahmo arrinta, bakayla weyn mid laga sameeyay sida Mooryaan oo hoos uga yimid dhulka ayaa isla markiiba cunay hal qof walba wuu kala cararay. Takada iyo Jika waxay arkeen gantaal la suray qoorta bakaylaha, waxayna arkeen giraanta kubadda basketball. Waxay isla garteen in ciyaarta lagu joojin karo adigoo ku tuuraya gantaalkaas giraanta. Waxaa bilaabatay ciyaar kale. Mid ka mid ah ardayda oo loo yaqaan Moodo 3 dhibcood ayaa isku dayay in uu gantaalka tuuro, laakiin bakaylihii ayaa labadiisa gacmood ku qabtay. Wuxuu isla markiiba ku dhuftay wiilkii derbi. Markaas Takada wuxuu xaday xeelad, wuxuu gantaalkii dhabta ahaa ku dhex riday kubad, wuxuuna ku daboolay dharkana. Waxay sidaas oo kale samaysay. Marka la tuuray, bakaylihii wuxuu lumiyey dareenkiisii, wuuna wareersanaa. Fursaddii ayaa timid, laakiin tuuristii kama dhicin si sax ah. Nasiib wanaag, Tengoku oo ah ninka xooga badan ee dugsi jacaylka watay ayaa si geesinimo leh ugu tuuray, wuxuuna ku riday giraanta. Ciyaartii waa dhammaatay, 3 qof ayaa badbaaday, Takada, Jika iyo Tengoku, laakiin ciyaarta kuma dhammaan. Ciyaarta xigtay, Mooryaanadii waxay hareereeyeen gabar iyaga oo ciyaaraya yaad itaabanaya. Heesta joojintooda kadib, gabadhii waxay si khaldan u sheegtay magaca, waxaa loo kala jebiyey 2 qaybood, mid kale isna wuu khalday, wuxuuna sheegay magac khaldan Jaamac. Markaasna Mooryaanku wuxuu ku amray in uu madax isa dhaco ilaa uu dhinto. Waxaa la rabay in xigta noqoto Hyomei, laakiin Takada ayaa hor istaagay, wuxuuna adeegsaday xeelad. Wuxuu hore u duubay codkii Mooryaanka isagoo dhahaya waqtigu waa dhamaaday. Codkaas ayuu adeegsaday si uu u fahmo Mooryaasha halkay ku sugan yihiin, una garto yaa gadaashiisa jooga. Markii la ogaaday, boom, Mooryaashii waxay qarxeen, waxaana ka haray furaha wareega xiga. Markii 2 qof ay gaareen dhamaadka, waxay la kulmeen dhowr arday oo kale oo gacmahooda ku haysta furayaal. Waxaa la ogaaday inay iyaguna yihiin kuwii ka badbaaday qolalka kale. 7 arday ayaa ku furay albaabka xiga. 7 fure ee ay haysteen. Wejiga cusub ee ciyaarta wuxuu ka dhacay meel baraf ah oo uu ka soo degay beer cad oo dul socda skateboard. Heerka ciyaartan wuxuu ahaa mid fudud, run sheegid. Qof walba waa inuu si daacad ah uga jawaabaa su'aalaha si ciyaarta loo sii wado. Beerkii cad wuxuu weydiiyey su'aal yaab leh, ma lika garayseen muuqaalka? Qof walba si degdeg ah buu u yidhi haa, waan lika gareeyay. Laakiin beerkii ayaa sheegay, mid idinka mid ah wuu been sheegaya. Haddii 2 daqiiqo gudahood aadan bixinin beenta sheegaya, dhammaantiin waad dhiman doontaan. Ardaydii waxay galeen khilaaf, waxayna si xun u dhiibeen wiil jilicsanaa. Beerkii si xun buu u garaacay, wuxuuna ka dhigay hilib jajaban. Su'aasha xigtay, ma subsriba garayseen? Qof walba wuxuu yidhi haa, waan subsriba gareeyay, balse gabar la yiraahdo Hyomei ayaa tidhi maya. Beerkii mar kale ayuu xanaaqay, wuxuuna yidhi mid idinka mid ah wuu been sheegaya. Dhammaan ardaydii waxay si degdeg ah u tilmaameen Hyomei, iyagoo leh waa iyada beenta sheegtay, si qarsoodi ah ayay u subsriba garaysay. Beerkii ayaa iyadana ka dhigay hilib. Markaas ayaa halyeyga sheekada Gotian wuxuu cadho darteed u qayliyey, haddii qofna aanu beenta sheegin, kan beenta sheegaya waa adiga. Adigu ma tihid beer cad, waxaad tahay beer madow. Markaas beerkii wuu dhalaalay oo wuxuu isu rogay beer madow oo dhuxul ah. Markii ay dhammaatay ciyaartaas, waxay u gudbeen wejiga ugu dambeeya. Waxaa hortooda yimid mid ka mid ah Russian dolls isagoo si adag u soconaya. Markaas buu iskala furay oo wuxuu noqday 3 dolls yar yar. Wejigan dambe wuxuu ahaa ciyaar adag, qof ayaa noqonaya shaydaan, kuwa kalena waa inay baxsadaan. Qof walba waa inuu si fiican u xasuustaa wejiyada dadka kale. Haddii uu magacooda ku dhawaaqo isagoo ku sugan meeltii hore ee ciyaarta, wuu qaban karaa. Haddii 3 qof la qabto inta aan qoraxdu dhicin, ciyaarta wuu ku guulaysanayaa kooxda baxsatay. Nasiib darro, Taniwaki ayaa noqday shaydaanka isaga oo ahaa nin xun aan damiir lahayn. Dadkii way kala carareen, 2 wiil waxay si fog u ordeen oo way daaleen, way fariisteen. Taniwaki wuu helay, wuxuuna qabtay mid kalena Jihyang wuxuu isu hibeeyey si uu u badbaadiyo Gotian. Markii dambena Gotian ayaa keli ah uga haray ciyaarta. Wuxuu lahaa 2 doorasho, inuu ku boodo qasacadii birta ahayd si uu u badbaadiyo Jihyang, laakiin qasacadaas ayaa qarxi lahayd. Inuu iska sugo qoraxda oo dhaxda iska joogo si ciyaarta u dhamaato, laakiin taasi waa dabeecad naxariis darro ah. Gabadhii ayaa qaylisay, ha soo bixin. Laakiin taas ayaa dhiirigelisay Gotian. Wuxuu xiray armor bir ah si aan wejigiisa
wejigiisa loo arkin sida uu xeerku sheegay, laakiin armorkaas wuxuu ahaa mid aad u culus, taasoo ka dhigtay mid aan si fiican u dhaqaaqi karin. Taniwaki ayaa ugu dambayn ka qaaday maskaxda, wuxuuna arkay wejigiisa isagoo doonaya inuu dib ugu noqdo meesha asalka ah. Ayuu arkay in Goten uu ku xiray silsilad bir ah. Goten wuxuu sameeyey qorshe, wuxuu iska dhigay mid daciif ah si Taniwaki u soo dhawaado, markaas buu ku xiray. Kadib Goten wuu booday, wuxuuna hoos u jiiday Taniwaki. Isagoo cagta hoos geliyey ayuu ka baxsaday oo wuxuu u orday dhinaca qasacadii. Wax yar kadib ayuu la koray armorkii, wuxuuna waqtigii ugu dambeeyey qasacadii ku riday dhulka. Ciyaartii way dhamaatay, balse lama qarxin, qofna ma dhiman. Russian Dolski waxay yiraahdeen tani waxay ahayd ciyaar caadi ah, ma jirin cid dhimaysa. Abaalmarin ahaan waxaan idiin haynaa cunto iyo jalaato. Dhammaantood way farxeen, way badbaadeen. Goten iyo Jihyang waxay qorsheeyeen inay hotel yar u seexdaan si ay u wada faaloodaan wixii dhacay, laakiin markay riyoonayeen, Jihyang gacanteedu way gariirtay. Dolkii afraad ayaa yimid, wuxuu ka dhashay saddexdii hore, mid matalaya caqliga, mid tamarta, midka kale maskax. Kan afraad wuxuu matalayay nasiibka, jalaatadii ay haysteen. Mid ka mid ah wuxuu lahaa usha dhimashada ku qoran, taasoo ahayd tan Jihyang. Iyadu way dhimatay. Goten wuu ooyey, inkastoo uu guulaystay ciyaarta, qofkii uu jeclaa wuu waayey. Dhanka kale, Taniwaki isna wuu badbaaday. Ugu dambayn, labada qof ee nool waxay ahaayeen Goten wanaaga iyo Taniwaki sharka. Sheekadu waxay dhammaystirantay fariin aad u qiimo badan. Qof walba wuxuu leeyahay laba dhinac, mid wanaagsan iyo mid xun. Haddii wanaagana hogaamiyo, waxaan heli karnaa berri ka qurux badan.